magaalada Oodwayne ee xarunta gobolka Dadwaynaha ayaa dareen midaysan ku soo dhaweeyay go'aankii geesinimada lahaa ee ay golaha deegaanka ee magaalada Heshay Dalka Ingriiska ay ku aqoonsadeen madaxbannaanida Jamhuuriyadda Somaliland kaasi ay dadweynahani ku tilmaameen guul u soo hoyatay Somaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Axmed Xamdi Yuusuf Silaayo xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Oodwayne runtii aad iyo aad halkan hadda riigiga ka dhiibto shalayto waxaan TV-yada ka daawanay ama golaha deegaanka Heshay Dalka Ingriiska oo runtii 380 mudan ay ku cod aqlabiyada ku meel mariyeen inay ictiraafeen Somaliland aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaya golaha deegaanka Heshay Dalka Ingriiska runtii waxaan leeyahay waa geesinimo waa ictiraafkii oo intiisii hore bilaamay waxaanu aad ugu rajeynaynaa gobolada kale ama Yurubta kale ama dawladaha kale caalamka iyaguna inay ku daydaan talaabada geesinimada leh maadaama ay maanta muuqdo ictiraafkii Somaliland golaha deegaanka ee Heshay ee ku dhawaaqay goonisitaanka Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan leenahay markaa isha muuqata waa aqoonsigii Somaliland aad iyo aad u soo dhaweynaa farxad weyn oo dalka u soo hoyatay guul dalka u soo hoyatay oo halkan maanta ka hambalyeynayno golaha deegaanka ee Heshay ayaan halkan maanta ka hambalyeynayna oo ictiraafkayga ugu horeeyay dariiq noo furay waxaan leenahay golahaasi wuxuu kaga ooli doonaa baal dahaba Jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad u soo dhaweynaynaa golaha iyo cidii soo qaban qaabisay ayaan u soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaa golaha deegaanka ee gobolka Heshay iyo waliba jaaliyada barta ku nool ee arintan sida fiican uga hawl gashay waxaan leenahay hambaliyo caalamka waxaan u sheegnaa inay Somaliland aqoonsan way Somaliland waxay gaadhay ama ay buuxisay xilligii la aqoonsan lahaa shuruudihii dawladnimada lagu aqoonsan lahaa intii maanta way buuxisay marka dhammaan waxaan u sheegayaa dadweynaha meel kastaba caalamka inay Somaliland si degdeg ah u aqoonsan halkan waxaan mahad uga jeedinaynaa qurba joogta reer Somaliland ee ku dhaqan carriga Ingriiska gaar ahaan Sheffield United kuwa soo abaabulay ama councilka Sheffield United oo ictiraaf waxa la yiri wadada yar baa wadada weyn ku gurida taana waxaan u aragnaa guul u soo yeetay qaranka Somaliland meel kasta joogo waana soo dhaweynaa waana ku taageersan marka khayr baan Somaliland u rajeynayaa shacabka Somaliland waxaan leeyahay isku tiirsanaada dal kastana sidaa looga ololeeyo si Somaliland taa imika timi ay u sii hirgasho haddii dad ka mid ah caalamka maanta bogcad yar ha joogaan ee yarna ha noqdaan haddayna ictiraafeen waxaan leeyahay waa guul inoo soo hoyatay waxaana leeyahay dhammaan dadweynaha kale ama mujtamaca kale dadweynaha ku nool waa in la eega oo la arkaa 23 sanadood oo aanu goonistaanka ku hayn runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka ama golaha deegaanka Ingriiska runtii cidii jaaliyada reer Somaliland ee ka soo shaqeysay si ay u shaqeeyaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii xukuumadda Maxamed Silaayana runtii aad iyo aad baan runtii istiqaamka iyo hawsha ictiraafka raadinayso ay dalalka caalamka meel kasta ay marto aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaan bartan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka ay Somaliland gaadhay waxaan kaloo mahadnaqayaa nimanka golaha deegaanka Heshay ee aqoonsaday Somaliland jiritaanka Somaliland waxaan kaloo mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland oo u geed gaaban iyo geed dheer baa u fuushay sidii u heli lahayd aqoonsiga Somaliland waa guul Somaliland soo hoyatay waana markii uu horeysay madaxweyne Axmed Xamdi Silaayo oo ku guuleystay in wadankiisa la ictiraafo golaha deegaanka gobolka Heshay ee magaalada Ingriiska waxaan leenahay waa ku mahadsantiin ictiraafka buuxa ee Somaliland siiseen madaxweyne Silaayana waa madaxweynihii horeeyay ee hanan doona guusha ictiraafka Somaliland fursad inoo soo kulantay ay noo sameeyeen maadaama caalamku in badan inaga dhagaatay inuu aqoonsado ayagu ay noo fureen wadadii aqoonsiga aad baan uga hambalyeynaa waxaan kala hambalyeynaa jaaliyada Somaliland ee ku nool magaalada Heshay kaas ayaguna ka qayb qaatay sidii ay golaha deegaanka ee Heshay u aqoonsan lahayn Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Salmaan Maxamed telefishinka qaranka Somaliland magaalada